wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Somaliland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Salal oo maalmihii u dambeeyay ku hawlanaa wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyayaasha oo maanta warbaahinta qaranka la hadlay mar ay ku sugnaayeen dooxa cashuura oo maalintii saddexaad la mari karin kadib roobab xoogan oo maalmihii u dambeeyay ka da'ayay deegaanada xeebaha ee gobolka Salal. halkani waa dooxa cashuura oo ku jiro mid kamida gaadiidkii uu watay wafdigaasi. sidoo kale waxaa halkaasi ku degay cagafta dawladda hoose ee degmada Saylac oo gurmad u ahayd gaadiidkaasi. waxaana goobtaasi ka hadlay barasaabka gobolka Salal mudane Mawlid Maxamed Nuur, wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska mudane Cabdi Majid Ibrahim Muumin iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Somaliland mudane Cabdiqani Maxamuud Caateye Fariid. mas'uuliyiintani ayaa sheegay inay roobabkaasi hakad geliyeen nidaamkii diiwaangelinta iyo gebi ahaanba isku socodkii bulshada iyo gaadiidka ee deegaanadaasi, waxayna komishanka qaranka ka codsadeen inay hoos u eegaan xaaladaha deegaan ee gobolka Salal. daasi wax qasaarna faadan bay keensan laakiin magaalooyin badan oo ay saameysay sida Toqoshi, Saylac, Caashacado, Ceelgaal ilaa iyo Geerisa ilaa iyo banki Gariyaad intaaba duruufay geysatay isku socodka muddada 4 cisho waxaan dhigay. runtii waxa yidna kala ku soo biirtay in dhammaan goobihii diiwaangelintu aan meel shaqadu ka socon. dadka gobolkan degani waxa ahaayeen dad xoolo dhaqato ah, dad baadiye ah, meel fog ka soo lugeynay. waxa ay sababtay duruuftan taala inay dadka isku gudbi waayaan, inay isku socon waayaan. maanta diiwaangelintu 7 cisho maraysa, 3 cisho horna ay qarba ahayd, 4 cisho maantana ay si fiican uga hawlgelin. runtii cagaftan iyo baabuurtan iyo waxa ku jirada cagaftan waxa gurmad u ahayd cagaftii dawladda hoose waxay gurmad u ahayd inay Toqoshi talooda si ay magaalada biyaha uga sidayso meelaha riskiga ah u furto wadada. laakiin qadarta iyadii baa ilaa xalay ilaa shay la tacaalay meesha laga saarayo halka doorkii biyaha isagana kala la tacaalaya. laakiin arrinta muhiimka ah doonayaan baaq ka darnaa waxa weeye gobolkan diiwaangelintiisa muddo waqtigaas waa laba 7 cisho hore weylna. marka insha Allah bismillaah kariim waxaan rajaynayaa komishanka doorashooyinka qaranka arrintan hoos u eegaan. markaa gaadiidkii iyo socodkii wadooyinka uu xidhan yahay. halkan waa cagaftii oo gurmad noo soo samaysay aniga wafti ballaaran oo hogaaminaya wasiirka gaashaandhigga oo muddooyinka ba ku sugnaayeen xarunta gobolka Salal dhixdan oo ah meel u dhow tuulada Toqoshi. laakiin nimcadii Ilaahay baa dhulka waran. nimcadiina waxay keentay isku socodkii inuu joogsado amba uu yaraado. anagu naxanibay diiwaangelintii waxay socotaa muddo 7 cisho. markaa 7 cisho 3 kamida magaalada Saylac umaanan dhaafin, waayo waxaa dhacday nimcada Ilaahay baa ayaa naxanibtay. gawaadhi badan baa gashay. gawaadhidii qaybtii anaga macallin naga saar lahayd gaadiidkii qayb gudbin lahayd waxa weeyaan iyagii baa galay. waxay waa nimcada Ilaahay baan ku mahadnaqaynaa. dalkoo dhan doorkii hore waxa 1200 iyo wax ka badan oo goobood, maantana waa 170 goobood. waxaanu jeclaan lahayn in goobaha maadaama goobaha la noo badiyo maadaama 4 cisho kamida ay khasaareen. waxa goobaha dhulka waa dhul kala fog, dhul dadku xoolo dhaqato yahay oo meel aan ku wada sugnayn. waxaanu jeclaan lahayn in badiyaan goobaha diiwaangelintu ka socoto. geesta kale maayarka degmada Saylac Yuusuf Cawaala Daahir iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalmihii u dambeeyay koonfurta degmada Saylac ee gobolka Salal ugu maqnaa hawlo shaqo oo la xiriira wacyigelinta diiwaangelinta ayaa maalintii saddexaad deegaanka Gariyaadka ugu xaniban sabab la xiriira raxmadda roobka ee Rabbi ka horshay deegaanada xeebaha ee gobolka Salal, iyadoo ayna weli u suurtagelin inay u soo gudbaan dhanka magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salal. Salebaan Cawaala Daahir, warbaahinta qaranka Somaliland, magaalada Saylac.